dhulka yaa leh dawladda leh inay maarayso xaq ma u leedahay ha inay dad siiso xaq ma u leedahay ha inay iyadu adeegsato xaq ma u leedahay ha inay dad aan Soomaaliba ahayn siiso xaq ma u leedahay say wax uga sameeyaan ha investment in lagu sameeyo xaq ma loo leeyahay yes intaasna meel dhig waxa soo haray marka dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin dawladoodu inay maamusho u fakarto intii ku haboon ay isleedahay dhulkan way degan yihiin in loo sharciyeeyo oo la yiraahdo haday dawladdu u aragto in meeshan la sharciyeeyo dadka loo sharciyeeyo in la sharciyeeyo haday u aragto inay ganacsade Soomaaliyeed oo suuq ka dhisa hotel ka dhisa investment ka bixiya dadku ay shaqo ka helaan in la siiyo dawladdu inay siiso waxa soo dhan waa maareynta qaybaha kala duwan ee dawladda lagu maareeyo waxa soo baxay marka la maareynayo khaladaad ma dhici karaan yes way dhici karaan labada dhinac way ka dhici karaan waxay ka dhici karaan dawladda waxay ka dhici karaan ciidamada amniga waxay ka dhici karaan dadkii deganaa deegaanka ay ka dhici karaan waxay ka dhici karaan ganacsadihii qudhiisa la yiri investment ku sameey meeshan oo noole oo dhis ay ka dhici karaan khaladaad u dhici karaa haddii su'aalaha dadka qaarkood ay soo celceliyaan ay tahay khidmad la qaadaa wixii xagee u socdaa xagee la geeyaa lacag la qaaday iyo khidmad la qaaday meesha la geeyay sida loo maamulay say yihiin dalkan hay'ado loo dhisay oo carbisan oo ka jawaaba jira ma aha in laga qaato qof mucaarada ma aha in laga qaato qof iska socda ma aha in uu ka jawaabo qof dawladda qayb kale ka shaqeeya wax kasta oo maamul xumo keento oo dhaqaalaha takrifal keeno musuqmaasuq keeno waxaa jira xafiiska hanti dhowraha guud oo hantida dalka ilaaliya dabagala asaga laga rabaa wax kasto sharci lagaga xadgudbay asaga laga rabaa waxaan leeyahay marka wixii khalad ah ee fulinta ka dhaca marka la yiraahdo dawladdu ay u aragto in la maareeyo cid la siiyo cid loo sharciyeeyo dad la siiyo wixii fulintaas ka dhaca ee khalad